marka mucaaradnimo maaha laakiin waxaan rabnaa xoogaa yar dawladda in xoogaa yar maaragtay cirbad lagu dhifto bulshada rayidka waxaan leenahay madaxweynaha iyo dawladdiisa waxaan leenahay sidaan kuugu lisnay nooguma hambayn sidaan kuugu lisnay nooguma hambayn taariikhda ma dhicin madaxweyne sidaad aragtay magaalada muqdisho xabad looga rido markii lagu doortay sidii laguu soo dhoweeyey iyo doorashadu inuu dhacdo sidaan uga shaqayna haddaan nahay bulshada rayidka wixii aan kaa sugaynay annagaan islahayn tala bixintii iyo fursadihii iyo accesskaad madaxweynuhu heli doontaan iyo dawladda maana hel waxaan jecelnahay fariintaas inay ku soo gaartay waxyaabaha aan islahayn haddii aad madaxweynaha aragtaan waxbaad ka dhihi lahayd oona talaad ka bixi lahayd waxaa ka mid ah in dekedihii soomaaliya ay hadda xaraash u ekaadeen dekedihii soomaaliya hadda xaraash u ekaadeen bulshada rayidka looguma talagelay in inta meeshaan timaado ammaan bixiso waxaa loogu talagalay inay wax tuxraxaan bixiso tala jeediso wax saxdo waxaan jeclaan lahayn maanta ka jawaab ku dhihi mayne dawladdaadu intay maaragtay wada tashato inay arrinkaas jawaab ka bixiso xanuunay nagu haysa xanuun waa soo qoraynaa uka okay waxyaabahan jeclaan lahayn waxaa ka mid ah haddii dhaqaalaha soomaaliya dal shisheeye gacanta loo geliyo haddii dhaqaalaha soomaaliya dal shisheeye gacanta loo geliyo ama shirkado shisheeye gacanta loo geliyo amniga dalkana waa saamaynaysaa dhaqaalaha dalkana waa saamaynaysaa annaguna waxaan aaminsannahay inaan nahay dadkii ehel ku ahaa inay ka hadlaan waxaan aaminsannahay inaan nahay dadkii ehel ku ahaa inay ka hadlaan haddaan maanta ka aamusnana waxay ku haraysaa dhibaatadu waxay ku haraysaa generationka dambe ee soo socda waxaa ka mid ah hawadii soomaaliya in maaragtay canada inta loo tago laleeyahay sidii dal maaragtay sovereigntigii laga haysto dal sovereigntigii laga haysto in la leeyahay war bahasheena nagu soo wareejiyan soo baryayn meeshii waxay ahayd presidential degree inta la soo saaro la yidhaahdo laga bilaabo maanta wixii ka dambeeyda UN ku gacanta kuma haynayso laba waa in la kala caddeeyaa waddanku ma trusteeship ku jiraa waddanku ma trusteeship ku jiraa mase waddanku waa waddan xora oo madax bannaan waxaan sugaynay markaan leenahay madaxweyne saan kugu hilinin ooguma hambayn waxaan sugaynay go'aamo cadcad oo aan isleenahay waddankaanay hore u dhaqaajinayaan maaragtay ayaan sugaynay maxaa kalifay in maalin kasta wasiir tago sheekh shariif markii cabdullaahi yuusuf yimid ayaa la bilaabay in ontario la aado sheekh shariifaa ku xigay waa tageen sanad kasta waxaa nalagu madadaalinaya waxaa la lahaa maaragtay waxaa noo imaanaya maaragtay hawadeenniyaan la soo wareegayna laba container oo soo dhuntay oo aeroboortka timidaan nalagu haystaan maqlayni warkaasu nama qabto waxaa ka mid ah qodob saddexaadaan ku daray wax badan haynaa waxaan leenahay xoolaha muqadiman madaxweynaha usii siinaynaa laakiin isagaan xafiiskiisa ugu geynaynaa ayagoo qoraala iyo ayagoo sharxaad intaba waxaan ku daraynaa waxyaabahan suuqa ka maqlayna waxaa ka mid ah in xitaa baasaboorka soomaaliya macnaha shirkadaha ajnabihu ay profit ka qaataan oo laba shirkadooda midna masar joogto midna ay joogto maaragtay cumaan laga yaabaa hadda markaa timid in la bedelay wax iska bedelayn laakiin macluumaadkaan haysanaa saasa haddii wax iska bedelaynna waxaan ka bixinaynaa raaligelinaan ka bixinaynaa waxyaabahaasoo tiro badan oo fara badan oo waxaa jira u baahan dalka in tillaabooyin geesinimada laga qaado waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa wixii aan halkaan ku habboonayn oo munaasib ku ahayn oo ka irina ha layga raali noqdo anugu mas-uuliyad shaksiga kuma hadlayo waxaan ka hadlaya mas-uuliyad ummadeed waana qasab markaas inaad waxa dhabtaa ka hadashid waxaan leenahay madaxweyne waa dawladda waa taageersannahay waa la shaqaynaynaa waa kula shaqaynaynaa laakiin haddii ay noqoto keliya ammaantu ay xigmadda maalintaas ay noqoto laakiin aan fursad u weyno waxa dhabtaa oo naga hadlaysan inaan si dhabha waaqac uga hadalno waxaan isleenahay waddadii kuwii hore ku tagayna laga yaabaa inaad idinkuna martaan waxaad noo ogolaataan bulshada rayidka loo ogolaataan in arrimaha dib u heshiisiinta ee arrimaha waddanka siyaasadda iyo istiraatiijiyada dalka lagu dejinayo in tala laga siiyo dad badan oo khubaraha ku jira annaga dadkeenna waxaa laga yaabaa inay u haystaan oo kaliya inaan joogno soomaaliya tusaale waxaan usoo qaadanaya aakhirkin markii aan tagnay maxkamadda heeg anigu waxaan ka mid aha dadkii maxkamadda heeg tegey halkaana mudaharaadka abaabulnay dawladdii iyo madaxweynihii markaas joogay ayaan wax badan maaragtay la doodnay dadkii la taliyaasha ahay oo markaas nala shaqaynayana waa joogaan aakhirkii waa ku guulaysanay maxkamaddii waa ku guulaysanay dadka nala shaqaynayay dad shanta qaaradood adduunka kala joogay ahaayeen oo khubaro soomaaliyeed
annagu hadda haddaad haysataan intaan afarta xamar joogto ama gobollada joogto inaan naamanihin waxaan u damqanaynaa dalkan inuu hor u socdaan rabnaa hadda waxaan isu diyaarinaynaa mar kale dacwaddii maaragtay kale sidii loo geli lahaan isu diyaarinayna uga qayb qaadan lahayn haddii hadda mid kalena lagu furo oo hadda dekadihiina lagu furo oo imaaraadka gacanta loo geliyo ma qaadan karno ma la qaadan karo madaxweyne haddii dadka waxaan isleeyahay xoogaa madaxda ha la soo dhaweeya laakiin anigu waxaan aaminsanahay markaan madaxweynaha runta u sheego waa marka aan u hiilinayo madaxweynaha dowladda markaan runta u sheego waa markaan dowladda u hiilinayo sababtoo ah haddii marxaladiisu ay noqoto marxaladda soomaaliya ay guulaysato asagaa taarikhda galaya laakiin haddaan hadalkeennu isugu soo haro inaan is-ammaano kaliya oo hadalkeennu ammaan kaliya isugu soo haro aniga waxaan is leenaha wixii dhabtaa cid ka hadlaysa lama arko marka raalli ha layga hadlo waa mahadsantii